وتان كنا سو دوادا warbixinaynu kaga hadlayno taariikhda ururka Taliban ee dalka Afghanistan waxay bilaabantay taariikhdiisu sanadkii 1994 waxaanu xukumay ururkaasi qaybo badan oo kamid ah Afghanistan 27 bishii Sebtembar ee sanadkii 1996 ee dabayaaqadii qarnigii tagay ayay Taliban la wareegeen caasimadda Afghanistan ee Kabul waxaanay ku dhawaaqeen asaaska nidaam maamul oo shariicada islaamka ku xukumaya Afghanistan kaasoo uu hogaaminayay Sheikh Mullah Mohammed Umar dhaqdhaqaaqa Taliban waxa laga aasaasay gobolka Kandahar ee koonfurta bari Afghanistan ee ku yaala xadka dalkaasi la wadaago Pakistan fikradda asaaska Taliban waxa lahaa Mullah Mohammed Umar Allah u naxariistee oo loo yaqaanay aabihii Taliban Mullah Umar ayaa doonayay inuu meesha ka saaro musuqmaasuqa iyo habdhaqanka waxyeelaynaya akhlaaqda wanaagsan iyo soo celinta jawi nabadgelyo iyo xasilooni u leh bulshada Afghanistan waxaanu gacan ka helay ardaydii dhiganaysay xilligaasi muassasaadka lagu barto diinta ee ku yaalay gobolkaasi Kandahar Taliban ayaa xukunka ka tuurtay xukuumaddii loo yaqaanay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Afghanistan ee ka tirsanayd ururkii Midowgii Sofiyeetka ee uu hogaaminayay Ruushku sanadkii 1994 waxa dhacay afduub iyo kufsi loo geystay laba gabdhood oo laga afduubtay tuulada Sanij Hayras oo u dhow Kandahar waxaana falkaasi waxashnimada ka dambeeyay mid kamid ah kooxaha ka dagaalamaya Afghanistan warka afduubka labada gabdhood ayaa gaadhay Mullah Mohammed Umar waxaanu abaabulay ciidan aan ka badnayn 30 ruux kuwaasoo raadiyay gabdhaha la afduubtay Mullah Umar ayaana ku guuleystay howlgalka badbaadinta waxaana la soo celiyay labadii gabdhood Mullah Mohammed Umar ayaa xilligaasi ay soo food saartay halis weyn taasoo kaga imanaysay kooxaha afduubka geystay Mullah Umar ayaa u guuray gobolka Baluchistan ee ku yaala soodinta Afghanistan iyo Pakistan halka ayaanu ka soo bilaabay abaabulka xarakada Taliban kadib markii ay gacanta ku dhigeen Kandahar iyo nawaaxigeeda Taliban waxay weerareen Ismaaciil Khan oo fadhiyay galbeedka waddankaasi waxaanay ku guuleysteen inay qabsadaan magaalada Herat shantii bishii Sebtembar ee sanadkii 1995 isla sanadka Taliban waxay hareerayeen caasimadda Kabul magaalada ayaanay gantaalo ku garaaceen waxaanay gooyeen wadooyinkii ganacsigu soo mari jiray magaalada Kabul Taliban ayaana xilliga ugu baaqay madaxweynaha Afghanistan Burhanuddin Rabbani iyo Qalbuddin Hekmatyar inay joojiyaan rabshadaha iyo isbahaysiga ay Taliban kula dagaalamayaan bishii Sebtembar 26 sanadkii 1996 Hekmatyar iyo Rabbani waxay ka tageen caasimadda Kabul waxaanay u jihaysteen dhanka waqooyi iyagoo ka cararay Taliban oo la wareegay maamulka caasimadda isla markaana aasaasay imaaradda Islaamiga Afghanistan xilligaasi Pakistan waxay u aqoonsatay Taliban inay tahay dawladda sharciga ee Afghanistan waxaana xigtay Saudi Arabia oo maalintii xigtay u aqoonsaday Taliban inay yihiin dawladda sharciga ee Afghanistan sidaas la mid ah Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqay aqoonsiga dawladnimada Taliban ayaa gacanta ku haysay inta badan Afghanistan marka laga reebo qaybta waqooyi bari oo ay ku sugnaayeen xogaga isbahaysiga waqooyi dunida inteeda kale maysan aqoonsanin xarakada Taliban inay tahay dawladda sharciga ee Afghanistan qaramada midoobay ayaan yana aqoonsanayn xukunka xarakada Taliban dhaqdhaqaaqa Taliban ayaa taageero xagga saadka iyo bani'aadanimada ka helay Saudi Arabia iyadoo loo marayo gudiyada samafalka ayaa sanad waliba Sacuudigu u diri jiray Taliban $2 milyan si loogu maalgeliyo adeegyada caafimaadka iyo arrimaha agoonta 22 bishii Sebtembar ee sanadkii 2001 cadaadisyo caalami ah oo ka yimid dhinacyo badan awgood Saudi Arabia iyo Imaaraadku waxay kala noqdeen aqoonsigii dawladnimada Taliban taasoo keentay in Pakistan ay noqotay waddanka kaliya ee aqoonsaday dawladnimada Taliban bishii Oktoobar ee sanadkii 2001 Mareykanka oo ay taageerayaan ku dhawaad 30 dal ayaa ku duulay Afghanistan sababtoo ah Taliban waxay diideen inay u dhiibaan Mareykanka Sheikh Osama bin Laden ciidamada isbahaysiga waqooyi ee ay hogaaminayeen qabqablayaashii dagaalka Afghanistan waxay garab siiyeen ciidamada ku soo duulay dhulkooda iyagoo la dagaalamay Taliban waxaanay taasi suuro gelisay in Taliban xukunka laga tuuro balse ma rumoobin riyadii reer galbeedka ahayd inay jabiyeen Taliban 20 sano kadib Taliban ayaa xabad ku qabsatay Afghanistan dalalkii soo duulay iyo adeegayaashoodii Afghanistaniyiinta ahaa ayaa hungo kala huleelay waddankaasi waxaana rumowday oraahdii ahayd Afghanistan waa xabaalaha imbraadoriyadaha caalamka awoodda isbida